الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد cibaadooyinka iyo cilmigoodaynu ku dhex jirnay sakada iyo soomkaynu ka soo warranay sir iyo faa'iido iyo xukun waxay leeyihiin labadan cashar ee soo socda kan maanta iyo bari insha Allah waxaynu ku qaadan doonaa salaada markaa laba dhinac baynu ka eegi fadligeeda oo soo horeeya iyo axkaamteeda ku xiga in fadliga shayga aad garataa way ku dhiri gelisaa cibaadadana way ku macaanaysaa waanaad jeclaataa waxaad ka faa'iidaysana waad garan kadibna waad u dadaali sidaa daraaddeed baa sharcigu marar badan cibaadooyinka fadligooda iyo faa'iidooyinkooda aada uga nooga warramaa salaada qodobkaynu maanta soo qaadanaynaa waxa weeyaan 30 amran min khasaa'isihaa 30 arrimood oo ka mida waxyaabahay la goonintay salaada aynu habeen iyo maalinba qabtahayna sunno iyo falalba aynu wadno 30 arrimood bay la goonintay oo la yaabkeeda ka mid ah waa wixii ugu horeeyay la farad yeelay iimaanka kadib salaadu markii ummadda ilaahay uu ku waajibiyey waa markay ashahaataan markiiba waxa ku xigaya dee salaada tuko waa laga yaabaa soonka iyo xajka iyo sakada iyo inay dambeyn karaan laakiin salaadu waa cala tuul waad islaamtay tuko cibaadooyinka kale dhulka lagu soo waajibiyey iyadana cirka caalamka sare habeenkii nebiga la dheelmiyey sala allahu calayhi wasalam waxyaabaha ugu horeeyuu nebigu faray caruurta inaynu amarno wey ilmaha yar markuu 7 jir iyo wiil iyo gabadhba salaada fara buu nebigu 10 jirna ku edbiya cibaadooyinka kale arrinkaa way la dheertay nebigaaba bacdhaboo sheegayba sala allahu calayhi wasalam waa wixii caruurta lagu rabaynayay inta aynu sheegayno oo dhammiba wada daliilay leeyihin muruu awlaadakum bisalaati wahum abnaa 10 iyagoo 10 jira arrinta shanaad waa shaygii ugu dambeeyey nebigu dardaarmay sala allahu calayhi wasalam markuu sii dhimanayay asalaata asalaa wamaa malakat aymaanukum war salaada waa nebigoo sii dhimanaya ilaahay baa rasuulkana faro waxa le wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin ilaa geeridu ay ku imanaysa alla caabud isaguna wuu ku dhintay salaadi kama tegin nebiga sala allahu calayhi wasalam isagoo sakaraada ayaa uu tukanayay arrinta lixaad laa tasquط can اlmuslimi maadaamu mukalafa qofka muslimkaa waa cibaadada keliyan ka dhicin intuu caqli leeyahy cibaadooyinka kale haddaad kari weydo way kaa dhacaya oo waa lagaa dhaafayaa oo soomkii iminka haddaad kari weydo dee waa lagaa dhaafay sidoo kale sakadii xajkii laakiin tan caqligay ku xidhanta mar haddaad miyir qabto baaralays haw mar haddaad miyir qabtaba siaad u tukan kartaad u tukanaysa waa muhiimadda iyo miisaanka leeda daraaddeed rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa arrinta toddobaade waa shayga keliyuu sheegay ka tegiddiisu inay gaalnimota annaga iyo gaalada waxaa noo dhexeeya buuhi inuu qofku salaada ka tago hadduu ka tago faqad kafar in badan baa laydinku akhriyay xadiidka saxiixa arrinta sideedaad waa shayga ugu dambeeya haraya buu nebigu diinta islaamka dadku waslad bay u tuurayaan muslimku iyagoo gaalada ka baqaya ama shaydaanka raacaya isku xukunka shareecaday ka hortegayaan salaadana u dambaysa aakhiru maa tufqadu min addiin xadiidkuna waa xasan salaada ilaahay iimaan buu ku sheegay wamaa kaana allaahu liyudiica iimaanakum ilaahay salaadiinnii a qudus u tukateen ma dayacaya wuu idiin hayaa markii baytulmaqdis laga soo jeediyey asxaabta ayay munaafiqiintii iyo yuhuuddu ku yidhaahdeen oo salaada xaggaa u tukanayseen way baarixi garowday maba jirtaba taas way idinka luntay ilaahay wuxuu uhi salaadiinna ma luminaya mu odhan iimaankiina lumin maayo baa ilaahay wuhi waa salaada ay culimada tafsiir ku fasireen iimaan baa lagu sheegay
dee iimaan ma quwoobaya haddaan salaadi jirin ama ma jiraysa aynu hore usoo aragno waa shayga keliyaha uu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam markuu qofku ku dhex jiro inuu ilaahay ugu dhow yahay aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi wahuwa saajid addoonku wakhtigu ilaahay ugu dhow yahay waa markuu fooda dhulka ku hayo ku dadaala buuhi ducada waa arrin weyn wey arrinta tobnaad waa min alasbaab almuciinati calaa muraafaqati rasuuli sala allahu calayhi wasalama fi ljanna waynu jecelnay nebiga inaynu jannada kula rafiiqno waxaa jannada lagula rafiiqi karaa lagu raaci karaa inaad tahay salaad sax iyo mid sujuudda badiya nin baa nebiga su-aalay sala allahu calayhi wasalam inuu jannada u raaco nebigu wuxuu ku yihi acinnii calaa nafsika bikahrati sujuud waa muslim buu ku sugan yahay xadiidku haddaad doonaysa inaad jannada i raacdo sujuudda badso macnaheedu waa salaada badi qofba qofku ka salaad badan yuu nebi maxamed ku dhowey waa salligiisiina waa ka badan yihi arrinta 11aad maalinta qiyaamaha waa waxyaabaha uu ilaahay ku shaybaarayo dadka mu'miniinta ah ummadaha marka la shaybaarayo la kala saarayo salaadun baa la odhanaya tukada munaafiquna ma kari karo muuminkuna horey buu ka sujuudaya yowma yudcawna ila sujuudi falaa yastatiicuun sujuud baa loogu yeedhaya gaaladu ma karayaan muuminku laakiin horey buu ka sujuudaya yowma yukshafu can saaqin wayudcawna ila sujuudi falaa yastatiicuun wey aayaddu waa calaamadaha ugu waaweyn lagu muujinayo ummadda xadiid saxiixana nebigu wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam ina ummatii yudcawna yowma alqiyaamati guran muxajaliina min ahari lwuduu xadiidkii muslim ku sugnaa ummaddayda waxaa loo yeedhayaa maalinta qiyaamaha iyagoo wada iftiimaya intay ka weysaysan jireen baa hilaacaysa kii aan weysaysan jirin madoobaad buu qabaa gudcurku ku hadhaya maalinta qiyaamaha waa shaygu ilaahay kaga ilaalinaya naarta xarama allahu caza wajala cala annaari an taakula ahara sujuud ilaahay naarta wuxuu ka xaaraantinimeeye buu nebigu yihi inay cunto meeshii ilaahay loo dhigay halkii lagu sujuudayay qofku wejigu ilaahay u dhigayey naaray iska daabaalay ninkaasi wuu sujuuda ama ruuxaa dumarkaa waa cajiiba wey waa shayga ugu cajiibsan uu qur-aanku sheegay inuu akhlaaqdeena nasixi karo miyir inoo yeeli karo munkarka inaga ilaalin karo ina asalaata cala almu'miniina waxaa la ina salaata tanhaa can alfaxshaa'i walmunkar foolxumada iyo dembigay dadka u diidaa salaadu dadkeennu kayla yaabaan derdernaantiisa yidhaahdaan maxaa ku dhacay sawkii salaadana tukan jiray salaadii wuxuu samaynayaa isma qabtaan wey awliyada ilaahay waa shayga ay ku raaxaystaan markay ku jiraan rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam marka arrin ku cuslaado xasabahu idaa xasabahu amrun fazaca ila salaa salaadun buu degdegay waayo ilaahay baa yihi wastaciinuu bisabri wasalaa marka arrin kugu adkaado intaad eedaadi lahayd aad cid kale ku ordi lahayd bal alla u tuko horta oo ishortaag arrinkaaha kaa maareeye wajucilat quratu cayni fi salaa ishaydu waxay ku qabowsataa buu nebigu yihi salaada arixnaa biha yaa bilaal bilaalow inagu raaxee markaa kolka ay cibaadadu dhadhan kuu leedahay waa cibaado lagu dego oo lagu nasto oo meeshii siyaasaddii iyo dhaqaalihii iyo qabaa'ilkii iyo murankii markaad ka timaadeed masaajka timaado waa meeshaad ku qabowsan lahayd marka inaga rid maahee oo ka carar maaha laakiin waa halkii lagu degayay arrinta 17aad waa miisaanu lisaa'ir alacmaal camalada kale lagu miisaamaa cumar baa wuxuu lahaa allaha ka raali noqdee qofka salaada ilaaliyaa fahuwa limaa siwaaha axfad waman dayacahaa fahuwa limaa siwaaha adyac qofka salaada ilaaliya waxaynu u garanaynaa cibaadooyinka kale inuu ilaalinayo qofka salaada dayacaana cibaadooyinka kale inaanu hadh u jiidayninoo wada dayacayabaynu garan waa meesha lagu qiyaaso qofka camalkiisa waa munaajaatun bayna allaahi wa bayna rabbi qofku wuu jecel yahay ciduu qadarinayo inuu la faqo oo la gooni noqdo la sheekaysto dadkaad jecesha inaad wakti la qaadato ood ku gooni noqotaad jecesha halka ilaahay lagula gooni noqdo ee lagula sheekaysto weeye salaada haddii saxiixuu nebigu saa inoogu caddeeyey sala allahu calayhi wasalam muslim ku sugan oo qofku marka uu yidhaha alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahayna uu kuu jawaabayaa wuxuu leeyahay xamadanii cabdii addoonkaygii waa mahadiyey alraxmaan araxiim markaad leedahay ahnaa calaya cabdii addoonkaygiina way ammaanay
xadiidku saas uu soconaya markaad ducaysatana wixii aad ilaahay bariday buu ku siinayaa markaa waa sheeko aad ilaahay la sheekaysanaysa adigoo la faqaya qodobka 19aad awalu maa yuxaasabu bihi alcabdu yowma alqiyaama xadiis saxiixa bay nabiga kaga sugantay sala allahu calayhi wasalam inay tahay salaadu shayga ugu horeeya qiyaamaha malafkiisa la furaya ama faylkiisa la xisaabinayo markay addoomuhiisa soo taagaan xuquuqda addoonka iyo ilaahay u dhaxaysa salaada kow ah hadday hagaagto wixii kaloo dhan uu hagaagi hadday ka xumaato wixii kaloo dhan uu ka dari arrimaha addoomaha u dhaxeeyana dhiigga u soo horeeya marka iska sax si aad u badbaadi karto intaad ifka ku noosha waa min asbaab maghfirati dhunuub acdamu asbaabi maghfirati dhunuub waxyaabaha ugu weyn ee ilaahay uu dembiga kaga dhaafo way sidaa lagaaga dhaafayaa waxa lagaaga dhaafayaa salaada qodobka 11aad acdamu asbaab alfaraaxi fi dunya wal-aakhira adduunya aakhiraba horumarka guusha waynu jecelahay iyadaa kow ka ah قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قد للتحقيق رب نمبو لهاي وحل إذا نيدتك الصلاة وذا كحر رقوذا قرحية خشوعة إلهي وسوشي السدى ومن مفاتيح الرزق ساقط بأولتي وأردي سائم بدنوا بني آدم كم هي فرياش يدوى الصلاة صومر ومفاتيح شنطة فراد قادنا يسا شنطة وقت اللي تكن يو كل قصدت بفريسة قصدها إلهي كم إذا برمضا سون قراع وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها مركو إلهي أهلك هذا الصلاة فركنا أتكون نبي الله أما قف ولا بوح الراعي لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى الساقد أنتكو أيوة عشان أسيغان صلاة أنوكو كويدين ما أنا كولا ديارة بابا إلهي الساقد أنا كولا ديارة وحبها كور وريني أدوكو يعابدو إلى صحيرينو نبي صلى الله عليه وسلم وحو عدي وارنت الصدحية اللباتنات حديث صحيحة أبي داود كسوغن وحاو تلمامي من حافظ عليها كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة قف وادو صلاة إلاليو إنو إلهينا بلن قاضي إنو جنة قلينا في ذمة الله إلهي مغنتي سوكو جراه أفري اللباتن ورأس الأمر وعمود الإسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة تيرك صلاة وي تيرك إسلام كمان لا تيرك وعلوس الإسلام كنت هاجي وصلاة هذا صلاة إسكجت تكتود مالها إسكور وريكتو إسلام كيواد بربوريسي أو وحبة ولا ما هارين هرنت الشنية اللباتنات اشترط الله لها أكمل الأحوال من الظهار والزينة واستقبال القبلة مركز صلاة اللي يسوت هاجي حالة أجوانا أكسن وأنا نقطان باي لها هل كأجوانا أكسن قابلوا كعبدا xaaladda ugu wanaagsan ku sugna oo dahaara oo nadiif adigoo nijaasiyo waxa lahayn xadad toona dharka ugu wanaagsan xidho khuduu ziinatakum inda kulli masjid boqorkii weynaabad hor taaganta difaac buu nabigu ku tilmaamay intidaaruha ribaadun fi sabiilillah inta salaad sugayso difaac baad ku jirtaa ka soo qaad qof cadowga inala dagaalamaya front line-ka ama halka ugu horeysa safka dagaalka ku jira oo hubkiisii haysto dhufayska ku jira baad la mid tahay ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات وحكسوا قبل نبيقوا انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط مركز صلاة كبح مثل سويس الدفاع بعد كجرتا بلايدي وينيدي عدوي وين الشيطان ثرتها أنت النبي عليه الصلاة والسلام يعيد والبمركي وإلهي إلا هذا يوا شيء كلي النبي قال لي صبر فاعبده واصطبر لعبادته وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها النبي محمد عبادته كنت لا تاكو ادكو انا dadku in badan buu ka duulaa cibaadooyinka kale oo dhan waxay kaga cajiibsantahay waa joogto habeenkii iyo maalinta xaalada xasaasi ah kaaga soo beegmays marka sababta leeyahay joogtee waa taas weey 28 waa awwalu ma yustaqbalu bihi almawlud ilmaha dhasho waa waxa uu horeeyay ku aftaxayno soo adaan iyo qiimid ma way lagu aadaama dhigna laga qiimo wa aftaha ayaa looga dhigayaa awwalu ma yatahassaru bihi alabd yawm alqiyamati ala tarki shayga ugu weyn uu ka murugoon doono way qofku maalinta qiyaamaha ma salakakum fi saqar qalu lam nakum min almusallin ahlu jannah ahlu naar kiba la weydiiyay waxa la waa idin kan naartii baa ku dhex jirtaana maxay idin ku wacna halka la idin ka soo raacay asalaada aan tukan jirin been ما أنت كنشرينه لم نكن من المصلين بالآيات هالكاسين نجس الرعد
أرنت الصدنات من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا والنجاة يوم القيامة قفك أدو إلى اليوم حافظ نوضا وهلا يا نور يا الدليل يا بدبادو انت سوق قيامها إلهي الله ربنا أرنك سوا افتيما يا دليل وين يحجنا وهايستا إسلام أركانا وكبد بادا يا بلايوين كالكا يسوي دارنا يا لكن إلى أنتي بوامح وإلى علم جيدة طهارة جيدة وقت جيدة جمع جيدة أحكام تيدا أحكام تروي نهاري أحد أعلام السلف أيا وحولها صدًا كان صنادادا إضافي مؤذنكم مو أذان إلا وأنا في المسجد صدًا كان صنادادا تجي ما يدعن أنا جوا مساجد كتاجن مويانا إنه أذان مساجد مؤذن مركن مساجد كده جوجابو أذانيا وأنتو كان يا صلاة سنة وقيمة يا جمعيبا تكبيرة الإحرام كلها ليلة يا دقم تأيو يجب قبلين تأمرك للديدين حافظوا على الصلوات ساسكو إيمانيسا أحكام تيدنا وللحديث بقية لحية طبعا كانت دقيقة وحين قادني صدًا الرماد وخصوصيات كصلاة كمدة الله ينقو أنفعه يدنا الله ينقو أقبله جننا الله ينقو بدله صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربي